الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalayaal waxaynu ku jirnaa tobankii ugu dambeeya bisha Ramadaan. wax badan ayaynu ka soo faa'iidnay Ramadaan. waxaa naga soo dhammaaday 20 beri oo khayr badnaa. laakiin hadda waxaynu ku jirnaa tobankii ugu khayrka badnaa oo ilaahay inoogu sheegay quraankiisa oo inoogu dhahay quraankiisa bismillaahi raxmaani raxiim. bismillaahi raxmaani raxiim. innaa anzalnaahu fii laylatil qadr wamaa adraaka maa laylatul qadr. laylatul qadri khayrun min alfi shahr. waxaa loo baahan inaan ka faa'iidaysano tobankan waxyaabaha ee aynu ku gaari karno wanaageeda. waxaan ku gaari karnaa wanaageeda inaan helno kunkaas bilood tuleel badan anagoo tukana tahajudka habeenkii oo dhan aan u taagnaano ducado aan badino iyo mar walba aan ku xidhnaano ilaahay inaa badi sadaqada inaa samafalka badisid inaa wax wanaagsan ku hadashid maalinkiina aa badisid quraan akhriska inuusan noqonin bishaan Ramadaan aysan kaaga dhammaanin ciyaar iyo dheedheel oo tobankan ay kugu dhammaadaan si farxad la iyo adigoo hela habeenkii laylatul qadarka ah. ilaahay hana wada waafajiya dhammaanteen inaan helno habeenkaasi, laakiin wuxuu u baahan yahay dadaal fara badan iyo soo jeed badan iyo ilaahay ducadiisa oo la badiyo iyo salaada la badiyo. marka walaalayaal aan badino salaada mar walba aan ku dadaalno tobankan. waxyaabaha laga faa'iideeyo tobankan waxaa ka mid ah inaad taqwo badan kala tagtay bishaan, inaad cabsi badan ilaahay adoo ka cabsanaya aad ka baxid, inuusan noqonin bishii Ramadaan inaad iska soo soonto keliya ee aadan waxba ka faa'iidin. laakiin waxaa loo baahan inaad bishaan ka soo faa'iiday taqwo badan iyo cabsi badan way kuu dhaweyso sanadka inta ka dhiman wanaagii iyo cabsida aad ka soo qaaday bishaan inuu ku geyso bisha sanadka inta ka dhiman aad ku moodid. marka walaalayaal aan ku dadaalno tobankaani. waxaan ku jiro habeenkaas khayrka badan ee aanan la heli karin. waa habeen aad u khayr badan. waxaana laga baahan habeenkaas ducooyin rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam baray. Caaisha ayaa weydiisay maxaan ku ducaystaa haddii aan arko laylatul qadarka tobankan dambo. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay ku ducayso allahumma innaka cafuwun tuhibbul cafwa fa'fu cannaa. oo ilaahay cafiskaa jeceshahay anigana cafi oo ina cafis badan la weydiista ilaahay, sababta bini aadan ayaynu nahay mar walba dembi ayaa naga dhaco. marka si aan dembigeena ilaahay nooga cafiyo oo aan u helno 1000 bilood ajirkeeda waa in habeen walbana usoo jeednaa badinaana dikriga ilaahay badinaa maxaa lahay ducadaane amar ku celcelina allahumma innaka cafuwun tuhibbul cafwa oo aan ka dhigana wardi tobanka habeen ugu dambeeyo. walaalayaal waxaa mar walba isku faraynaa ama isku dardaarmaynaa cabsida ilaahay iyo inaysan bishaan naga noqonin keliya bilcaabud kuwa ahaa ee noqdo kuwa ilaahay mar walba caabuda mar walba ilaahay ka cabsada salaadoodana ilaaliya. walaalayaal aan ilaalino soonkeena inta ka dhiman salaadana ku dadaal oo tahajudka iyo taraawiixda mar walba hadaa awoodid. dad qaar ayaana jira hadda tukanayaan taraawiixda ama tahajudka ee guryahooda ku tukanayaan. ayagana waxaan leenahay gurigaaga ku tuko ilaahay ku bari mar walba aad joogtid xilli walba aad joogtid ilaahay baryadiisa lagala aqbalaya. haddii aad badisid baryadaada adduunyada waxa kaliya lagu gaari karo waa baryada ilaahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أنا أحمد كان دون صاحب صومالي أوفيشال. مرحبا له ذاك أصحاب هذا سبسكرايب كان السلام عليكم.